tababaraha cusub ee kooxda Liverpool ay sida rasmiga ah ugu dhawaaqday Arne Slot ayaa durba dalbaday 4 ciyaartooy oo uu sheegay inuu diir uga dhigayo dib u dhiska uu ku sameynayo kooxdiisa cusub ee Liverpool taas oo toddobaadkan ay 2 ciyaartooy maslaameeyeen waana Diego Alcantara iyo Joel Matip. Arne Slot ayay Liverpool u magacaabday tababaraheeda cusub ee bedelaya Jurgen Klopp kadib markii ay waayeen Xavi Alonso oo ahaa dooqooda koowaad. Sida uu qoray wargeyska Daily Graph, tababaraha Slot ayaa maamulka kooxdiisa Liverpool waxa uu u gudbiyay 4 ciyaartooy oo ku tilmaamay inay yihiin diirarka uu doonayo inuu ka bilaabo dhismaha kooxda, kuwaas oo xusay in loo baahan yahay in heshiisyo cusub laga saxiixo. Ciyaartooydan oo hore u sii joogtay garoonka Anfield ayaa kala ah Darwin Núñez oo saluug badan dhinaca kulalinta ah laga muujinayay 2 sanadood oo uu joogo naadiga Liverpool, Mohamed Salah oo qandaraaskiisa uu sanad ka harsan yahay, Alexander-Arnold oo 2 bilood kadib xor ka noqonaya garoonka Anfield, iyo Virgil van Dijk oo isaguna ku jira duruufta Salah iyo Alexander-Arnold oo kale. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday tababaraheeda cusub ee bedelaya Jurgen Klopp oo maslaameeyay kooxda isla markaana bilaabay inuu ka guuro wadanka Ingiriiska, waxaana sidoo kale ay shaacisay waqtiga uu tababaraheeda cusub shaqada bilaabayo. Liverpool ayaa waxa ay sheegtay in tababaraheeda cusub u magacaawday Arne Slot oo u bedeli doona Jurgen Klopp, kaas oo toddobaadkii hore saxaafadda u sii sheegay inuu noqonayo macalinka cusub ee Liverpool. War saxaafadeed ay soo saartay Liverpool ayay ku sheegtay in Arne Slot uu shaqadiisa bilaabi doono 1 July ee soo socota, inkastoo ay ku xirnaan doonto waqtiga uu helo warqadda oggolaanshaha shaqada oo kaga xirnaan doonta dowladda Ingiriiska. Ciyaartooyda Liverpool ayaa dhammaantood kale fasax ay ku maqnaan doonaan ilaa bisha July, waxaana intooda looga yeeray xulalka qaramada Yurub ee Euro 2024 iyo Copa America ay tagi doonaan dalalkooda, halka kuwa kalena ay qoysaskooda waqti u heli doonaan. Horaanta bisha July ay ciyaartooyda aanay dalalkooda ka qayb gali doonin ciyaaraha Euro 2024 iyo Copa America ay dib ugu soo laaban doonaan garoonka Anfield oo ay ka bilaabi doonaan tababarkooda isku diyaarinta xilciyaareedka cusub, waxaana hoggaanka u qaban doona markii ugu horeysay Arne Slot. Si kastaba haddee, tababaraha reer Netherland ayaa la filayaa inuu guulo ku hogaamiyo kooxda Liverpool, isla markaana uu sameeyo wixii uu garoonka Anfield uu ka sameeyay tababarihii uu bedelay Jurgen Klopp oo Liverpool la qaaday Premier League muddo 30 sano kadib, iyo koob kale oo laga xusi karo dhigaweynaha Yurub ee UEFA Champions League.